kadib doorashadii golaha wakiilada ka qabsantay xarunta golaha wakiilada Soomaaliland ee magaalada Hargeysa ee lagu doortay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Axmed halka gudoomiye ku-xigeenka koobaadna loo doortay Saciid Jaamac Giire gudoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay Mudane Cali Xamuud Jibriil oo ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa hadaba dadweynaha magaalada Boorama waxay hambalyo iyo tahniyad u direen shirgudoonka cusub ee golaha wakiilada ee maanta sida rasmiga loo doortay si gaarana waxay u hambalyeeyeen shirgudoonka maanta iyagu ka socday xisbahaysiga xisbiyada mucaaradka oo kalaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ah gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad oo Cali Xamuud Jibriil hadaba dadweynaha magaalada Boorama oo hambalyadani la wadaagaya mas'uuliyiintan cusub ee maanta la doortay ayaa waxay yiraahdeen waxaan kala hambalyo iyo salaam u diraya iyo mahadnaq u diraya xisbiyada isbahaysiga ee mucaaradka ee ku guuleystay maanta shirgudoonkii iyo labadii ku-xigeenba ku guuleystay waxaan kala iyagana hambalyo u diraya shacabweynaha Soomaaliland meel kasta joogaan baan leeyahay isbedelkii aan doonay maanta inuu ka wangaadhnay Allah inoo kadbo midhaheedaan goosan doonay haddii la idhaaho waxaan leeyahay waxaan kala tacsiin u diraya xisbiga kulmiye waan tacsiinaa kana waayo halka ciidda ku ridina wala garanayaa ilaahay ka saaray u leeyahay nasiibkiisa taasi waa taa waxaan kala leeyahay xisbiyada maanta ku guuleystay shirgudoonka iyo labada ku-xigeen waa in isbedel dhab ah oo muuqda wadanka ka samaysan oo la arkaa waxaad qabatay la arkaa mucaaradku maaha dumiye waa dhis dadku waxay u arkaan mucaaradku inuu dumiye yahay maaha dumiye waa dhis weey mucaaradku waxa weey wixii qalacday uu toosiya ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay maantaan guul joognaa guul maantaan joognaa haddii ilaahay inoogu wado guusha inoogu wado waxaan saaka halkan hambalyo uga direynaa baarlamaanka Soomaaliland oo loo doortay galabkii isbahaysiga Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka oo loo doortay xilligan Giire iyo Cali Xamuud Jibriil gudoomiye ku-xigeenka labaad oo si gaar ah uga hambalyeeyno maadaama gobolka Awdal nahay oo nu helay xubintii shirgudoonka Cali Xamuud Jibriil hambalyan leenahay waxaan leenahay saadaali isbedel baa dalka dhacay saaka waxaan rajaynaynaa dalku inuu isbedel fiican qaaday inuu isbedelkaasi ku sii socon doono waxaan kaloo si gaar ah maanta hambalyeenayaa 28 xildhibaan ee golaha fadhiya ee qaranka Soomaaliland taladoodii iyo codkoodii u dhiibteen shirgudoonka ay doorteen macnaheeduna ahaa rabitaankii bulshada ay ka jawaabeen runtii iyagana waxaan leeyahay hambalyo cimrigeena ha jira waxa doorateen xaq waxa doorateen codkii shacbiga waxa doorateen mushaar xalaala waxa doorateen sumcad wanaagsan aad baad ugu mahadsantihiin ilaa inta yani ummadda sameeysan waxaan sheegayaa kaliya waxa weeyaan shacabka cid soo taagi kartaa ma jiro muddo 2 bilooda xukuumaddeena maanta waxay wareejinaysay doorashada shirgudoonka runtii way horjoogsan kari weyday waan ka xumahay magacay weynaa ay lahayd laakiin iraadada shacbiga cid hortaag karta ma jiro rabitaanka shacbiga weeyaan ummaddu isbedel bay dooratay isbedelkiiba mucaaradkuna soo saaray ilaa sixiyaan bay ahayd bari hore laakiin ilaa xilligan hadda soo gaadhay laakiin sidii ay shacabku rabeen haddana u dhacday waxaan leeyahay hambalyo guud ahaan qaranka Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayaa waxaan maanta halkan ku hambalyeynayaa doorashadii labadan biloodba ka socotay iyo loolankii ka socday Soomaaliland oo maanta soo gabagaboobay shirgudoonka madaragtay baarlamaanka doorashadiisa ku soo gabagaboobay iyo dhaartii yaan aad iyo aad u hambalyeynaya dhammaanba Soomaaliland iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto waxa ilaahay xamdigiya maanta ummadda reer Soomaaliland waxay u codaysay isbedel dhab ah iyo codaysay isbedelkiina waxaad ka arkaysaa hadday tahay golaha deegaanka oo maayaradii lagu kala baxay maanta u dambaysana waxa lagu kala baxay shirgudoonkii golaha baarlamaanka waa alxamdulillaah baan leenahay hambalyaan leenahay inta guuleysatay dhammaan waanu hambalyeynaynaa inta madaragtay laga badiyeyna waanu tacsiyadaynaynaa khaasatan xisbiga kulmiye tacsibaan u dirayaa alla madaragtay naxariistiisa ballaan Allah inisiiyaan leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay war dadku waa dadkaagii maanta musharax xisbi ma tihid gudoomiye xisbina ma tihid madaxweynihii qaranka Soomaaliland baa tahay intii rabitaanka shacbiga waad ku qasban tahay inaad hogaamiso ood hor kacdo ood hormuud ka noqoto waad ku qasban tahay ee ka dhacay xarunta Hargeysa sida rabnibu u dhacay
sidaan ku wadnay buu dhacay waa lagu kala calaf qaaday cabdirasaaq khaliif waxaan leenahay haddaanu nahay ree awdal hambalyo 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 annaga isbahaysigaase danta noogu jirtay xildhibaan yaasiin faratoonna waxaan leenahay si fiican baa u tartantay laakiin baashu waa kaa hoos booday saaka khaliif waxaan leeyahay allaha kugu asturo xilkaa gobolkuna wax badan buu ka sugayaa isbahaysiga doorashaduna si dimuqraadiya u dhacday markaad eegto labada dhinac dhinacana ku jireen mucaarad dhinacna maxaafad baa ku jiray doorasho dimuqraadiya ka dhacday waa hambalyaynaynaa golaha cusub cabdirasaaq khaliif mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay hambalyo hambalyo dantuna waxay ku jirtaa isbedel doonka shirgudoonka koray maanta waxaan hambalyo halkan uga dirayaa dhammaan shacabka reer Soomaaliland gaar ahaanna isbahaysiga mucaaradka oo ku guuleystay gudoomiyihii baarlamaanka kulley maanta waxa ka dhacay waa taariikh Soomaaliland shacabka reer Soomaaliland waxay u codeeyeen isbedelkii u codeeyeen baarlamaankii uu ka dhabeeyay runtii waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa cali xamed jibriil oo ka soo baxay gobolka awdal oo isna ku guuleystay kaalinta labaad ee isbahaysiga mucaaradka waxaan leeyahay cali hambalyo dadaalkii badnaaye uu galay uu ku guuleystay shacabka reer awdal way ku garab taagan yihiin xisbiyada mucaaradka waxaan ka sugaynaa waxqabadkii ay u ballan qaadeen shacabka bismillaahi raxmaani raxiim awal marka hore ilaahay yaa mahadleh ilaaha nagu guuleeyey inaan ku guuleysano golaha baarlamaanka saddexda ku xigeen gudoomiyaha koobaad labaad iyo saddexaadba ilaaha nagu guuleeyey yaa mahadleh waxaan hambalyaynayaa xisbiyada mucaaradka gudoomiyaashooda cabdiraxmaan ciro faysal cali waraabe iyo dhammaan taageerayaasha labada xisbi qaran raxiim halkan waxaan ka salaamaynaa una hambalyaynaynaa shirgudoonka baarlamaanka ee maanta guuleystay ee xisbiyada mucaaradka halkan hambalyo aad iyo aad gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka cali xaamud jibriil hambalyo guushaas aan maanta gaadhnay muddo badan baan daba soconnay ilaahay guushii halkaan rabnayna waan gaadhnay waxaan leenahay hambalyo gaar ahaan cali xaamud jibriil faarax ayaan u hambalyaynayaa 100% oo gobolka awdal ka soo jeeda walaal waxaan ku leeyahay guushaad gaadhay ilaahay ha kugu garab galo kulli aanu sidaan rabay u dhacday waxaan taageersanaa cabdirasaaq khaliif in gudoomiyaha koowaad loo doorto ka labaadna ninka loo doorto in loo doorto ayaan jeclaa iyo cali xaamud يا عبد الكريم نكاس بهايته وصام عابي عبد الكريم قدوم كمان كوبات وانقص صور جدا وصوتنا نجلع بلاكها مركا قاعد بينهم بليان يا رجال الدورتي على حميدهم بليان يا همبليا بالنا بسم الله الرحمن الرحيم halka waxaan hambalyo iyo tahaniyad uga gudbinayaa shirgudoonka cusub golaha wakiilada Soomaaliland oo maanta si sharaf leh loogu doortay xarunta golaha baarlamaanka ee Soomaaliland ee Hargeysa runtii xildhibaan faratoonna sidaa uu u tartamay ee u hambaliyey isagana waan oday oo u hambaliyayna shirgudoonka cusub ee soo baxayna aad baan dhammaantood u salaamaynaa oo hambaliyayna gaar ahaan waxaan halkan aad uga hambaliyaynayaa cali xaamud jibriil gudoomiye ku-xigeenka labaad oo leeyahay hambalyo garabkaaga Allah galo xildhibaanada waxa leeyahay haddaba sidaa ku walaalooba doorasho way dhacdaa waa la tartamaa nin baana badiyaa maanta waxaan halkan hambalyo uga dirayaa xukuumadda Soomaaliland ee suuro gelisay in uu qabsoomo doorashada shirgudoonka guud ahaan Soomaaliland waxaan kaloo mar labaad ku hambalyeynaya doorashadii guud ee ahayd doorashadii isku sidkanayd ay qabatay xukuumaddu waxaan ku hambalyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo howlwadanadii ka qayb qaatay waxaan leeyahay shirgudoonka golaha wakiilada loo doortay ee Soomaaliland uma hambalyeynaya marka ugu horeysa waan u ducaynayaa waxaan ugu ducaynayaa inuu Ilaahay ku astro xilka la saaray ee golaha ay u doorteen shirgudoonka iyagoo marka hore mas'uuliyad shacab ay saarnayd oo ay marka hore cod shacab ku joogay mar labaad ayaan leeyahay labada xilba waan idinku ducaynayaa inuu Ilaahay idinku astro waanan u hambalyeynaya marka labaad mar saddexaad waxaan si gaar ah aan leeyahay oo ugu ducaynaya uguna hambalyeynaya gudoomiye ku-xigeenka labaad cali xaamud jibriil
oo aan markii horena ilaahay nagu guuldarraynin hadalkii dheeraa iyo dadaalkii kambeynka iyo ololihii aan galnay mar labaadna aanu ku hungoomin oo dee ku guulaystay inuu hankii uu yeeshay mar labaad golaha aanu geynay ka dhex yeeshay ee uu noqday gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada waxaan leeyahay allah kugu asturo xilka maanta waxaan halkan ka hambalyaynayaa shirgudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ee ku guuleysteen Cabdirasaaq Khaliif iyo Cali Xaamid Jibriil gaar ahaan waxaan halkan ka taageerayaa oo gobolkayga matalay Cali Xaamid Jibriil waan u hambalyeynaa hambaliyo gudoomiye waa sidaan filaynay gudoomiye wuxuu noqday labaad aqlabiyada ugu badnaa golaha wakiilada ee Soomaaliland waana taageersanayn waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa dhammaan 28 xildhibaan ee maanta loo dhaariyay baarlamaanka Soomaaliland waxaan si gaar ah u hambalyaynayaa gudoomiye ku-xigeenka saddexaad labaad Master Cali Xaamid Jibriil aad iyo aad baan u hambalyaynayaa ilaahay xilka lagu dhaariyay ha kugu asturaan laahay waxaan aad iyo aad u hambalyaynaynaa isbahaysiga sida quruxda badan leh ay u agaasimeen xildhibaanada iyo majority-ga ahaanta ay intaas oo dhanba ay ku soo hawlanaayeen waxaynu leenahay faratoon waa inaad sida fiican ee ugu quruxda badan leed u hambaliyaysaad ula shaqaysa xildhibaan gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan kaloon hambalyaynayaa gudoomiye ku-xigeenka labaad Cali Xaamid Jibriil oo loo doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad wallaahi doorashadu waxa u dhacday hab dimuqraadi ah sidii la filayay ma si ka qurux badan baa u dhacday taana waxa ku amaanan gudoomiyaha xisbiga ahna madaxweynaha qaranka mudane Muuse Biixi Cabdi mahadnaqa waxaas kale Muuse Biixi waan u hambalyaynayaa habkay dimuqraadiyadana waan hana qaadnay waana bogaadinayaa Soomaaliland maanta guul weyn bay gaadhay raxiim maanta waxa farxad weyn ah in maxaan dhahdayay maanta ay guushi ay gaadheen xisbiyada labada xisbi mucaarid oo inta runta ahaantii la doonay inay dadku sidaa isku kaashadaan isuna tagaan haddii aanay iskaashan lahayn arrinkaas ma dhaceen waxa aan hambalyaynayaa qaabka quruxda badan ee ay u dhacday sida aan maxaan dhahdayay guusha loo gaaray